السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال إذن لهانتين بميل كستو أتشوكتان ومركلة إيو برنامج كيني مرتي إيو مددالو وطبعا هذا هنوكالي أي نسكوبي من جرها ودا داوديال برنامج كوحا وقبراتين شيكوين كلا دوان دينا عما تاتي ليستياشا ومركاسيان كمغنين سيدو كلا وحان كمغنين كلمها سوغان تهدي نقطو هيسا ومركاسي برنامج كقوديه سينتو سعودو آنو إذن كلا وداغنو إيو ولبا فنانين تا kuwa aad ugu jeceshiin marka anagu idin horkeena caawana daawadayaal barnaamijka waxaanu ku soo marti qaadnay mid kamid ah fanaaniinta aad ka dadayar isla markaasna aad jeceshiin heesahoogan aad ka heshaan hadaba bal fanaankan caawaan barnaamijka ku soo marti qaaday waxaan doonayaa intaan qaybaha barnaamijka u galin inaan magaciisa iyo markaasi furitaanka barnaamijkan idin la wadaago waxa weeye Maxamed Cabdiqani Maxamuud oo ku magac dheer dawlad aad iyo aad ba ku soo dhaweynaya. Thank you very much waa markii ugu horeysay aad barnaamijka murti iyo madadaalo aad ka soo qayb gasho horta marka ugu horeysa aad iyo aad baan ku soo dhaweynaya mar labaad iyo mar saddexaadba bal waxaan doonaynaa inta aynaan kaalmaha suugaanta iyo waliba heesaha kala duwan aynaan gelin in aad adigoo taariikhdaada markasta taariikhda marka la wadaagay daawadayaasha qaar badan oo aan garanayn qaar badan oo ku garanaya qaar badan oo aad hore u la wadaagtay markasta waxaan kula wadaagnaa barnaamijka gudihiisa intaanaan bilaabin dhinaca taariikhda qofku halka ku soo barbaaray halkii uu fanka ku soo galay hay anagu waxaan ku soo barbaaray oo ku soo koray Togdheer dugsiga waxbarasho kii hoose kii dhexe kii aan ku soo qaatay magaalada Burco intii ka dambeysay mid badan kullee wadankan ka maqnaa way jirtay meel kasta waan maray mara Afrika ka maqnaa iyo mara Carabta ku maqnaa muddo badan ka maqnaa way jirtay fankuna maxay ahayd anigu horta favorite-kayga hobbigayga caadiga ah iska aha markasta oo qofna wax uu xiiseeyo qofna waa yaani wax iskaga abuuran anigoo yar caruurba waxaan uga abuurnaa heesaha aan aqaanay inta kadib laakiin waxaan jeclaan jiray bariga hore inaan dhoofan bariga hore jeclaan jiray oo jeclaa inta kadib waxaan soo war korta kullu inta dhoofayso isaas kada hees ma soo marka dhoofto wanaad heesaagi waxa iska soo bilaabatay ha kadib adigu nasiib wanaag maxay tiima suurta gelin inaan caadi u dhoofo intii kadib dhoof jacaylku wuxuu kalifeen taariikh waxta qalbiga dhoofaday ha adigu 2015 baan soo noqday oo wadanka soo noqday marka anoo soo waaya arkay oo waxyaalo badan dhoofkii aan jeclaan jiray iyo waxyaalahaas aan ka soo waaya arkay oo wadana qalaad soo arkay iyo dhibkoodii iyo waxyaalaha leeyihiin isla waqtiga waxaan jeclaystay inaan wadankayga aamino wadankayga maxay wax kasta aan ku noqon karo waxaan doona ku samaysan karo meel iiga wanaagsan oo ka xorriyad fiican aan helin marraba fankana waxaan ku bilaabay Hargeysa 2015 waa mahadsan tahay qaybaha dambe ee barnaamijka ayana markaas isugu soo noqon doona Maxamedow waxaan doonayaa daawadayaasha mar hadii ay arkaan inagoo sidan u wada fadhino barnaamijkii murti iyo madadaalana ku guda jira dabcan Maxamed Dawladna ay indhahooda qabanayaan waxay doonayaan xabad hees ay marka qaac ka siiyaan si ay indhaha u kala qaadaan daawadayaasha bal hees baan soo qabanayaa intaan adigu inoo doonin waxaan doonayaa bal heesaha inaan xaggan inooga soo qabto heesta furitaanka barnaamijka wax la chess ها هست جسس أريضة يلحن كبوح السمين أبوانا أنا هذا صاحب النهار والسلام عليه دلب سعيدير
ها ereyada laxanka baa isagaa sameeyey muusigiisu sheekh muumin subxaanayo ayaa ku farayaaraystay haye aniguna codku maan ku daray bal waa hagaag dhinaca farsamada iyo suldaan bal markaasi ku wareejin doonaa heestaas iyo codkii tilmaanaaye maxamed jacayl ma galo jirtiid ishqigu ma geeyo jabashaduna waa dahabe jees jacayl ma galo jirtiid ishqigu ma geeyo jabashaduna waa dahabe jahayga dhabanada nuurka joogdheer hunoy jinigaaga jaadkaad haweenka tahaa laabtayda jiidanaye dhabanada nuurka joogdheer hunoy jinigaaga jaadkaad haweenu tahaa laabtayda jiidanaye jimcadii horeto jidka aanu maray si kuma jaleecin gaadhigii ma joojin jamarkaaga quruxdaana kama jeesan waay si kuma jeclaanin jimcadii horeto jidka aanu maray si kuma jaleecin gaadhigii ma joojin jamarkaaga quruxdaana kama jeesan waay so kuma jeclaanin adigaa jacayli baro jijirkaanu aalaayo hawadaa jidin ma cune adigaa jacayli baro jijirkaanu aalaayo hawadaa jidin ma cune falayo yaad dhabi jeceshahay ana kama jeesanaye kugu ma jor falayo yaad dhabi jeceshahay ana kama jeesanaye jahaaga iyo jimirkaaga afshanooy bashaashnimadaada hadba jeeni qaad socodkaaga jeestada idishee iyo jimirkaaga afshanooy bashaashnimadaada hadba jeeni qaad socodkaaga jeestada idishee jimcadii horeto jidka aanu maray si kuma jaleecin gaadhigii ma joojin jamarkaaga quruxdaana kama jeesan waay so kuma jeclaanin jimcadii horeto jidka aanu maray si kuma jaleecin gaadhigii ma joojin jamarkaaga quruxdaana kama jeesan waay so kuma jeclaanin adigaa jacayli baro jijirkaanu aalaayo hawadaa jidin ma cune adigaa jacayli baro jijirkaanu aalaayo hawadaa jidin ma cune haddaynu daawadayaal intaa kaga soo noqono heestii jeestes ee markaasi furitaanka barnaamijka ee murti iyo madadaalo maxamedow kolley fanaan baa tahay markaa saaxadda de fanka in badan ambase in yarba iyanaan carabaabine kolley markaa hadduu fanku qofku fanka ku jiro dee saaxadda markaa fanka saaran yahay waxyaabo badan buu arkayaa waxaad ii sheegtay markii hore inaad dalal badan aad soo martay oo meelo badan walow aanad carabka ku dhufan xagga qurbaha
ma jirtaa intii aad arkaysay waxyaabaha indhaha ugu qabanayeen amba ku soo jiitay amba kaa yaabiyey horta waxyaalaha iga yaabiyey haddaan wax ka taabto intaa bulshadana aan dhex joognaa walow intii aan fanka ku jiray aanan waddanka somaliland aanan ka bixin somaliland waxyaalaha igula yaabka badnaa matalan dabcan intaan bulshada ku dhex jiray wax ka mid ahaa dadka shacbiga ah ee waddanka ku noole waxay aaminsan yihiin marka la eego fanka in lagu cadaab galay u yaqaanaan laakiin salaada in laga tago iyo maxay tahay in waxyaalo kale la sameeyo yacni lama weyna maalin maalmaha ka mid dhowr casho wax badan waxa dhacday anagoo saa u fadhino asxaab badan oo ku wada fadhino laga yaabo inaan buuxnaba ayaan maalin baan waxaan ka dhex kacay rag badan oo saa u fadhinay salaad baan soo tukaday soo cibaadaystay marka soo noqdayba nin baa wuxuu yiri niyow maxamed wani wallaahi waan kaa naxayaa mad iska daysid fanka igu yiri cadabtaad ku gelaysaa dadna waxaan ku yiri adigu wad maasantan ku horta wixii dabcan qofka bini'aadamka cadaab gelinaya waa xun tahay badde laakiin se maxay aayad quraan ma haysaa ama leeyahay qofka wala cadaab yaa tufan kalo waa talabaad waan ku yiri adigu ilaahay wuxuu ku abuuray in ma garanaysaa aad caabudo oo qof kasta in ilaahay caabudo loogu talagalay marka maxaa yacniga adiga ku kalif maxaa ku diiday baan ku yiri inaad cibaadaysato aniga maadaama intaan aad farayso aad cibaadii adiga ilaahay dhaxaysay anu dibna feelay ka sugayaa kullee inta ma garanaysaa waan cibaadaystaa waxyaalihii faralkii kalena insha Allah taala faralkii kalena waan gutaa marka yani waxyaalaha ugu yaabkooda wax kamid ah dadku nin fanka talo u yaqaanaan cadaab talo in la salaada laga tagay waxyaalaha kala sameeyay cadaab yaqaan waxaad leedahay salaada de qofku hobbigiisana waa gaar salaaduna de waa gooni waasta waxyaabihii marka adigana ku soo jiitay mar hadda meel kale aad soo martad maxay kamid ah wallahi waxyaalaha soo jiitay oo naftayda dabcan aan raahdo waxaas ay soo jiitay oo ku tilmaamo kulli intaan waddanka joogay iyo intaan waddanka maqan qofka bini'aadamka waxyaalo badan oo carqalad u la kulmaa jira naftaaduna marna farxad bay iskaga jirtaa mar yacni aad carqalad iyo duruuf aad dareemaysana way jirtaa markaan idhaahdo adduunyada kulli intaan marayay waxyaalaha dabcan kulli la taaban karo wixii soo jiito aan sheegi karo imaka kulli aanan kaaga carabaabi karaa kuma odhanaya sidaasaa jirta laakiin waxyaalo fara badan oo la yaab leh ama qofka cajab geliya ayaa kulli ila soo kulmay oo aan arkay laakiin kuma tilmaami karo imaka halankaaga ma sheegi karo waxaad leedahay qalbigayga iyo niyadeedu way ka bateen waxyaabihii soo jiidashada badnaa waxaa jirta markuu qofku fangalayo amba hobbi leeyahay qofku had iyo jeer ale riyadiisa markay tahay waxbuu ku riyoodaa oo yidhaahdaa allayle amba fanaankaas amba qofkaas aad gaadhid sida fanaanintii waaweyneed ee hore de waa berigii wallaahi anigu fanaanintan jeclaa fanaanin badan baan jeclaa aad iyo aad waxaa waliba intaan yaraantii xitaa kusoo bartay ee kamid ahaayeen xataa laana ku dayasho aan sameeyo marka maxay tahay kaban lagu heesayo aan heesahooda qaado waxaa kamid ah cumar dhulle maxamed salmaan tubic allah yarxamo way dhinteen labadoodiba waxaa kamid ah cabdi taaliil fanaanin fara badan oo ragga imika matalan tusaale ahaan intaan kusoo qaadi karo maxamed axmed kuluc fanaanin fara badan oo waa beri ku jiray oo ku dayasho iga mudan yacni aan aadna u jeclahay heesadana aad u jeclahay weliba aad iyo aad igu sii dheeryihiin cumar dhulle geesi iyo hanadba lagabodsada ragna kii wax gaadhada la garwaaqsada absolute afkaaga caana lagu qabay weli waxaynu bartamaha kaga jiraa caweyskeeni murti iyo madadaalo halkaad nagala socotaana waa xarunta TV-ga Ariel ku leeyahay magaalada Hargeysa bal waxaan soo qabanaya xabad heeso gorahanba aan doonayay indhahaygu markaa ku dhacayeen oo aan islahaa daawadayaasha qaybahooda kala duwan la wadaagtay marka intii nasiib u yeelata barnaamijka ee la socotay inta la socon doontaba waxa la yiraahdaa heestan xiis waxaad leedahay waxaa jira xaasiin hadday xagaldaac helaan xumaan xumaanku miisaya xaggay kaa weeraraan inaad ka xidhaa habboon heestan waxaa sameeyey nin aan saaxiib nahay oo abwaan da'yara injineer dacar laahdo heestan wuxuu sameeyey xaaskiisa muusigeeda
markaa mar wuxuu sheegayaa maxay tahay naftiisa iyo xaaladiisa siday u tahay iyo qaabka u jecel yahay marna wuxuu kala dardaarmayaa nacabka hadii jalaalan laba qof markay jacayl dhex yaalo waa iska caadi in xaasidku ku farabataa mar kastaba markaa taasoo kala dardaarmaya muusiga maxamed xasan xuseen dagaalyare ayaa ku laday laxankan ana ku daray laxankeeda raaci waa hagaag waxa ma sugnaaba waa heestaasi iyo codka talmoone maxamed jacayl xididaystayo xurmada lagu dhowrayo xumaan laga reebayo adduunyadu xeerisan xisay adig ku hayaa jacayl xididaystayo xurmada lagu dhowrayo xumaan laga reebayo adduunyadu xeerisan xisay adig ku hayaa waxaad tahay xuural cayn xaq dhowr ku barbaartayo xariir quruxdeedu tahay waxaad tahay xuural cayn xaq dhowr ku barbaartayo xariir quruxdeedu tahay aday xididada wadnaha dhammaan xinjiraha ku jira aday xididada wadnahu dhammaan xinjira ku jira aday ku xaq dhowrayaan intay ku xusaan adiga ayaay xoriya kalgacal aday xididada wadnaha dhammaan xinjira ku jira aday xididada wadnahu dhammaan xinjira ku jira aday ku xaq dhowrayaan intay ku xusaan adiga ayaay xoriya kalgacal waxaa jira xaasidiin hadday xagalda helaan xumaan ku miisaye xaggay ka weeraraan inaad ka xidha habboon waxaa jira xaasidiin hadday xagalda helaan xumaan ku miisaye xaggay ka weeraraan inaad ka xidha habboon waxaan xarfadda biciyo waxaan xogagaal warramay
macaan xiftiyo adkeeye waxaan xarfada biciyo waxaan xogagaal warramay macaan xiftiyo adkeeye aday xididada wadnaha dhammaan xinjiraha ku jira aday xididada wadnaha dhammaan xinjira ku jira aday ku xaq dhowrayaan intay ku xusaan adiga ayaay xoriya kalgacal aday xididada wadnaha dhammaan xinjiraha ku jira aday xididada wadnaha dhammaan xinjiraha ku jira aday ku xaq dhowrayaan intay ku xusaan adiga ayaay xoriya kalgacal waa hagaag daawadayaal haddaynu intaa kaga soo noqono heestii xiis wuxuu yidhi waxaa jira xaasidiin hadday xagaldaac helaan xumaan kuu miisaye iska ilaaliso inaad ka xidhaaboon de xaasidka iyo waxaa inaga ilaaliso xaasidku aad buu u dhibadayay soo maha maxamedow haddii iminkaan ku odhan lahaa lagu odhan lahaa baan leeyahay waxaad noqotaa qadar daqiiqadaa waxaad noqotaa xil qabo maxaad qaban lahayd tiroon lahaa maxamedow xil qabo wana horta xilku waa mas-uuliyad aada u culus bulshadeenuna waa xil jecesha markaan waxaan odhan lahaa xilka halayga daayay waxaad leedahay xagga aada uma jecliyo ma xisay waxaa jirta riyooyin badan buu qofku leeyahay kasakoo marka fanka laga yimaado bal wax kaloo fanka kale oo shaqo kale oo aad qaban wallaahi shaqooyinku way fara badan yihin qofkuna hobbigiisa yacni waxyaaluhu fanku waa hobbiya waan iska riligas dadka fanka qaar baa wuxuu soo galaa inay lacag iyo wax ku helaan anu horta kitaab ma soo gelin waa iska riligaskayga moogta laakiinse maxay ahaydey shaqooyinka qof bini aadani yacni uu israada ka shaqaysid horta shaqo marka la leeyahay dadka qaar baa wuxuu yaqaanaa waxyaalaha qaar inay ceeb yihiin bad qofka bini aadankii inuu shaqaysto waa sharaf shaqooyinka shaqo anugu kuley shaqo kasta oo kuley dabcan nafteeda aan idhahdo maxamed kulle way u qalantaa dee waan ka shaqeyn lahaa maxamedow anagoo dhinaca su-aalaha usoo noqonayna maadaama haddaynu daawadayaasha laba heesoodoo dee aan kala dhicinayno qac uga siinay qof waliba meel buu jeceliyay inuu tago xaggee baad jeclaan lahayd inaad ku dalxiisto amba haddii lagu idhaahdo meel joogdee nafsadaada halkee baad degi lahayd iska joogi lahayd somaliland meel uma dhaafeen dhinac kastaba ha noqotay inkastoo aynu caawa halkan kusoo bandhigano hees gobolladoo dhan ka sheekeynaysa habeenimadan caawa hees kalaan soo qabanayaa oo aan markaasi doonaya daawadayaasha inaynu kula caweyno oo iyaduna odhanaysa wax kastoo dhib xambaarsan dadku way xaliyaane xubbi laysku afdhaafay iska xalfid weeye oo jacaylku isagaba ugu dhib badan maxay tahay jacaylku waa hol badan yihin laakiinse marxaladda iminka heestu ka hadlaysaa ayaa waxay tahay horta qoladiina fanaaniintahan waxaa tanaan jacaylku ma hawl yaro mar kasta jacayl unbaad dee jacaylka bulshada haddii jacayl la waayo lama noolaan karayo noloshooda ayuu ka mid yahay marka horta heestan waxaa sameeyey abwaan qalin lanin la yihahdo oo abwaan oo dhalinyaro ah ereyadiisu aad u macaan yihiin marka anigu heestan anaa asaga weli ka qaadanin habeenada ka mid a anagoo rag badan oo aan saaxiibanahay aan wada fadhino nin sicitaanka la yihahdo kabanaystiya nala joogo ayuunbaa sicitaankaa wuxuu ku dhuftay heestan buu ku dhuftay wax kastoo dhib xambaarsan dadku waa xaliyaaye xubbi la isku afdhaafay iska xaal fudud weeye intaa markuu marinayay ay dadkii markaa meesha joogay baa saa usoo wada eegay dadna waxaan ku nidhi war sicid heesta bal ku dhufayso maxay ahayd baan ku nidhi haa dabeetana wuxuu hadda la xameynayaaba masaasa haa markaa waan ka wada helay heesta
marka anu waxaan ku markaa aniga iskalan ku heesta already xitaa marka abwaan kelima weydiin moogda dadna waxaan ku heesta markii dambe adigu information weydiiyay laba abaan qalin lahaa faraha ka qadmaan in yar kadibna waxaan noo yimi qalin la dadna waxaan ku heesta ana qaatay saas baan ku ula soo ha waa saxib yiri nin marka nin xitaa la yiraahdo Safwan Saciiduna saaxiibana oo heesaha hore aad dhageysto oo heesii hore dad waqti heesta isagu u haya ayaa ma dhageysta marka heesaha dambe soo heesaha dambe oo already ma dhageysto marka wuxuu ku yiri dawladdu hadda heestaa soo saarto ma heesaha dambe dhageysanaya marka xaaladdu marka wax ka hadlaysaa laba qof jecel mar walba inay kulba khasab xanaaq way manayade laakiin xal loo ma waayo laba qof jecel xal ma xallin kari waayeen yani marxaladda dhex taala hama already waa mas'ala rag naf baxdi baa la xalliyaa oo marka jacaylka waa wax la xallin kare dhibaato weyn ka soo saarina waagaag waxaan sugnaaba waa heesta dib xambaarsan dadku waa xalliyaaye xubbi la isku afdhaafay iska xaal fudud weeye wax kastoo dib xambaarsan dadku waa xalliyaaye xubbi la isku afdhaafay iska xaal fudud weeye isku xujeeyo xiriirkeena kalsooni abidkii ma xumaan haddii la isku xanaaqo arrin la isku xujeeyo xiriirkeena kalsooni abidkii ma xumaan xurguftaadho ma ruuxana fiisho ama uu dhibo xaasidi jacayl xoog lima wiiqmo kastoo xurguftaadho ma ruuxana fiisho ama uu dhibo xaasidi jacayl xoog lima wiiqmo طول حسابتن دبتو حديداي عشق حر لاغو تاغي حارقي لما قويو وحكس طول حسابتن دبتو حديداي عشق حر لاغو تاغي حارقي لما قويو حشميو أما ليس حق دورو حاجة الداع ما يمادو حتى ليس حرميو سوى ليس حشميو أما ليس حق دورو حاجة الداع ما يمادو كاستاي حرقف كادو ما روحانا فيشو أما أودي بحاسيدي شعيل حوق اللي ما ويقمو كاستاي حرقف كادو ما روحانا فيشو أما أودي بحاسيدي شعيل حوق اللي ما ويقمو كاستاي حرقف كادو ما روحانا فيشو أما
ama uu dhibo xaasidi jacayl xoog lima wiiqmo wax kastoo dhib xambaarsan dadku waa xalliyaaye ishqi xer lagu taagay xadhigii lama gooyo waa hagaag haddaynu intaa kaga soo noqono xubbi la isku afdhaafay xalfidid wey inkastay xorguf gaadho marmar waxaana fiisho jacayl xoog lima wiiqmo faadma riyaad waxay raallihow waxaan ilaabay muusishinka gacanta macaan maftuux maxamuud cadceed oo muusiga ku faryaraystay hay laxankuna sidaan sheegnayba siciitanka aad iyo aad baynu dhammaantoodba u salaamaynaa heesta aadka u macaane qalbiyada dadka soo jiidatay heesta anigu laftarkayga aad baan uga helay haddaan intaa kaga soo gudbo waxaynu ku jiraa qaybihii dambe ee barnaamijka murti iyo madadaalo oo aad kala socotaan xarunta tv-ga eriol ku leeyahay magaalada hargeysa maxamedow inta badan dadku waxyaabo badan bay arkaan sidayna hore u sheegnay haddii balaaba lagu odhan lahaa aad soran lahayd macnihii dee higsigaagaa layla waad gaadhay waqti intee leg ayaad soran lahayd fanka aad ku gebagabee mise waxaad jeclaan lahayd weligaaba inaad iska sii rawado horta taalaa qoran laakiinse maxay tahay walow aanan iminka sheegaynin waqti haye laakiinse wallaahi dabcan waxaa dhici karta xataa adoo waqti ku talagalay inay kuu suurtageli weydo laakiin marka haddana dhahdo waqtigaasaan insha allahu isleeyahay haddii ilaahay gaadhsiiyo aad fanka joojisid horta imika intaa ma sheegi karo laakiin insha allahu tacaala kuley imika waa hagaag waxaan soo qaban doonaa hees badan oo heesaad gobolada oo dhan marka aad ammaanayso aanad midba ka tegin xagga ammaanta waxaa la yidhahdaa baadidoon heesta waxa weeye hayga baydhin baa la yidhaha haybaal mari soo ma baal heestan ereyada iyo laxankuba waa dalab siciidiir marka aad baan u salaamayna heestana markuu dalab sameeyey iyadoo labada beej badhan yihiin ayaa horta marka hore beejka dambe ee gobolada ku jiraan marka hore gobolada somaliland qura ku jiray dabeetana waxaa jirta anigu hees aan leeyahay oo gobolada somaliland qura marta bacdaha waxaan ku yidhi markaa si markaa ay uga ballaadhnaato markaa goboladii markaa shantii soomaaliyeed buu kusoo dira baan ku yidhi markaa baadidoon baana heesta leeyahay kolley baadidoonka wuxuu ka dhex muuqanayaaba waa inaan adigu la raadinayo intaas bal qiyaastii waa gobolkay kasoo dhex qabatay nasiib waa hagaag dhinaca farsamada ayaan markana heesta ku wareejin doonaa haye hablaha ka boqraday iligeeda nuur kale iyo bidicdeeda aanu bogeen ka barteen bishmaha u furay tan hablaha ka boqraday iligeeda nuur kale iyo bidicdeeda aanu bogeen ka barteen bishmaha u furay oka qayb barkeed huwatee kasha bidix wadnaha la baxdeeye oka qayb barkeed huwatee kasha bidix wadnaha la baxdeeye usiishay laabtayduye idinkaygu tabayay usiishay laabtayduye idinkaygu tabayay hayga barnel habanaynin baal hababinin axdad bertay lama bajiye hayga barnel meel habanaynin baal hababinin axdad bertay lama beeniye hayga barnel habanaynin baal hababinin axdad bertay lama beeniye hayga barnel meel habanaynin baal habajinin axdad bertay lama beeniye
iyo hargeysa iyo jabutiyaan ka baadhaye muqdishiyo ilaa beledweyn darwe aan ka baafinaya tanbaydhabo ilaa gabiley sooraan ka baadhaye jigjigiyo ilaa iyo bokool boosasoo ka baafinaya saylacaanu beegsanaye borame ka raadinayay saylacaanu beegsanaye borame ka raadinayay seeshay laabtaydu iye idinkaygu u tabayay seeshay laabtaydu iye idinkaygu u tabayay hayga barnal habbanaynin bal habbabinin axdad beertay lama beeniye hayga barnal meel habbanaynin bal habbajinin axdad beertay lama beeniye hayga barnal habbanaynin bal habbabinin axdad beertay lama beeniye hayga barnal meel habbanaynin bal habbajinin axdad beertay lama beeniye waa hagaag haddaynu intaa kaga soo noqono heestii baadidoon ee uu maxamed gobolada oo dhan isku maray inantaas uu raadiye uu yidhi hayga baydhin meel habanaynin maal axdad beertay lama baajiye waxaad leedahay dee ha teginoo goboladaas oo dhan baan kaa soo xulay soma muusiga aanu dib ugu soo laabanayno muusiga waxaa ku laray yuusuf sheekh muumin subxaan aad iyo aad u salaamay heesta macaankeedii badnaa bayna jitay isagana aad iyo aad baynu salaamaynaa bal qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka ayaynu markaasi soo gaadhnay inaga oo goorahanba daawadayaasha meel walba ay joogaan markaasi la caweynaynay bal halka marka fursad haddaan ku siiyo ugu dambeyntii horta su-aal yaroo kale balban ku sii xagga su-aalahan caawa kugu badiyaan malaynaya waxaa jirta maadaama ay heesahaagu jacayl iyo kalkacal iyo weli nacay malaakumayni jirin intaynu halka kusoo bandhignay xagga jacaylka horta ilaa nacaybka inaga hayo amiin anigu kulley markii horeba xitaa heesaa nacaybka ma dhegeysto ha walow muxuu tahay laga yaabo marmarka qaar inay iskaga yar dhex dartaa inay fiican tahay oo dee dadka bulshada horta bulshadan u heesnayo markaa dareenka bulshada markaa ka nacaybka rabana inaad siisaa waa loo baahan yahay ka jacaylka rabana inaad siisaa loo baahan yahay markaa laakiin kulley dhinaca nacaybkana kuwa nacayba unugu darana insha allahu tacaala waanu haynaa aan iska nabcaada aniga laakiin daawadayaasha qasaba baad leedahay waa hagaag bal fariinta ugu dambeysan markan daawadayaasha la wadaagayso inaga oo ugu dambeyntii barnaamijka markaasi taagan fariinta ugu dambeysa halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan faamilkayga horta hooyaday aabbahay xaaskayga inantayda yar bishaara riyaan walaaladay dhammaan maxay tahay asxaabtayda taageerayaashayda ummadda islaamka ah ummadda soomaaliyeed adigoo faadma riyaada dhammaan howlwadeennada iyo farsamo yaqaaniinta injineerada kamaramaanada wariyeyaasha ariel t v haahey waxaba aad baan u salaamayaa waa mahadsan tahay ayaal guud ahaanba waxaa intaasi inoogu dhammaaday barnaamijkeeni murti iyo madadaalo ood gorahanba kala socoteen xarunta t v-ga eriel ku leeyahay magaalada hargeysa barnaamijka caawa daawadayaal waxaa noogu marti ahaa oo markaasi barnaamijka murti iyo madadaalo u mahad celinayaa maxamed cabdiqani maxamuud oo ku magac dheer maxamed dowlad oo aan leenahay sida wanaagsada dalabaadkaaga nooga ajiibtay aad iyo aad baanu kaaga mahad celinaynaa muuqaalada kala duwan ee iska rab socda waxaa ku farayaraystay oo idinla wadaagaya habeennimadan caawa maxamed suldaan sidoo kale qaybta farsamada barnaamijka qurxintiisa waxaa ka qayb qaata toddobaad kasta mustafa siton markaasi isagana aanu aad iyo aad ugu mahad celinayno sidoo kale barnaamijku waxa uu mahadnaqayaa madaxa barnaamijyada Sakariye Xasan Raage Sakariye Usdaysi daawadayaal barnaamijka waxa toddobaad kasta idin la socodsiiya anigoo ah Faadumo Ismaaciil Muuse Faadumo Riyaad tan iyo intaanu ku kulmi doono barnaamijka xiga biidmillaahi kariim waxaan idinku dhaafaynaa heestii Yaasmiin iyo waliba codka baxsan ee Maxamed Dawlad heestan Yaasmiin waxa sameeyay erayada injineer Dacar heestan waxa loo sameeyay inaan saaxiibanahay oo leh Maxamed Abiin xaaskiisa أنا عود كانوا ولا رأي لحنك موسيقى مفتوح محمد عداد
midabada cadaankiyo marin dhalaalkiyo madowgiyo casaan kale ismiin muunadooday midabada cadaankiyo marin dhalaalkiyo madowgiyo casaan kale ismiin muunadooday murantan aqooni yaasmiin marwa camalsan leeyay yaasmiin murantan tan aqooni yaasmiin marwa camalsan leeyay yaasmiin nafta aad ka maqan tahay mehanow madayse nafta aad ka maqan tahay mehanow madayse yaasmiin murantan aqooni yaasmiin marwa camalsan leeyay yaasmiin murantan tan aqooni yaasmiin marwa camalsan leeyay yaasmiin nafta aad ka maqan tahay mehanow madayse nafta aad ka maqan tahay mehanow madayse yaasmiin marwadi caashaqa abuurtay midaanifka ugu jeclaaday marwadi caashaqa abuurtay midaanifka ugu jeclaaday ayaa meel dheer jirtee miyaan murugada marwadi caashaqa abuurtay midaanifka ugu jeclaaday marwadi caashaqa abuurtay midaanifka ugu jeclaaday ayaa meel dheer jirtee miyaan murugada maqalkayga dhegihiyo marayaasha dhigaba iftaaxoodii baa tahay muuqaalka aragiyo maqalkayga dhegihiyo marayaasha dhigaba iftaaxoodii baa tahay maalintiyo allaylkii yaasmiin maankaa ku tabaye yaasmiin maalintiyo allaylkii yaasmiin maankaa ku tabaye yaasmiin muxubiyo kalgacaaley kala marmi mayne muxubiyo kalgacaaley miyaan kaaba maarmo yaasmiin maalintiyo allaylkii yaasmiin maankaa ku tabaye yaasmiin maalintiyo allaylkii yaasmiin maankaa ku tabaye yaasmiin muxuu
وحبيوك القعالي ميان كابو مرمان وحبيوك القعالي كلامر بميني ياسمين روادي عاشقة أبورتي مدانفك أقو جعلادي مروادي عاشقة أبورتي مدانفك أقو جعلادي أيام ميل دير جرتي ميان 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 مرقدا قمام مروادي عاشقة أبورتي مدانفك أقو جعلادي مروادي عاشقة أبورتي مدانفك أقو جعلادي أيام ميل دير جرتي ميان 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 مرقدا كمان وحكستو ديب حنبارسان تبكوا حلياي حبي لا يسكو أفدافاي iska xaal fudud weey wax kastoo dib xambaarsan dadku waa xalliyaaye xubbi la isku afdhaafay iska xaal fudud weey